24 November 1989 ardayad dhigata jaamacadda Central Washington Mandy Stavig oo ahayd 18 jir ayaa si lama filaan loo waayay kadib markay soo aaday gurigooda. 3 maalin kadib meydkeeda ayaa laga helay meel u dhow webiga iyadoo loo geystay kufsi iyo dil arxan darro ah. yaa dilay Mandy Stavig maxaana sababay dilkeeda? balse intaan bilaabin muuqaalkeena maanta, hadday tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato channelka, fadlan ku soo biir adigoo saaraya subscribe si muuqaal walba aan soo gelino uusan kuu dhaafin. mahadsanid. kiiskan cabsida leh ayaa nageyn doona magaalada Whatcom County, Washington ee waddanka Mareykanka. waxay ku taallaa koonfurta iyo dooxada u dhaxaysa buraha Cascade ee waqooyiga Washington. Mandy ayaa dhalatay 26 Abriil 1971. hooyadeed iyo aabaheed ayaa ahaa Glenn iyo Mary. waxaa la dhashay 3 walaalo oo kala ah, Brent, Lee iyo Molly. ugu dambeyn labadeeda waalid ayaa kala tagay, mid kastana jihadiisa ayuu raacday. Brent oo ahaa Mandy walaalkeed ka weyn ayaa dhintay isagoo 17 jir isagoo ku jiray ugaarsi buraha Alaska. hooyadeed iyo labadeeda walaalo ayaa u soo guuray magaalada Acme ee u dhow Washington, halkaas ayay nolol cusub ka bilowdeen. Mandy waxay ku jirtay waqtigaas fasalka 7 taasoo la qabsatay deegaankeeda cusub. Mandy waxay ahayd gabar aad u soo jiidata ardayda kale iyo dadka degan xaafadooda. sidoo kale waxay aad u jeclayd inay ciyaarto kubadda kolayga, taasoo markii dambe lagu daray kooxda kubadda kolayga ee ciyaarta iskuulkooda. reerka Mandy ayaa deganaa meel 1 mayl u jirta wadada weyn, sidoo kale guriga wuxuu u dhawaa webiga Nooksack, kaasoo isagana 5 mayl u jiray gurigooda. Mandy waxay dhamaystay iskuulkii dugsiga sare, balse riyo ayay lahayd taasoo ah inay noqoto duuliye sare. kadib waxay aaday jaamacadda Central Washington oo iska diiwaan gelisay kulliyadda duulimaadka kuna taalay Washington. waqti yar kadib waxa uu bilowday tababarkii duulimaadka, balse waxay waqti badan dul fadhiday diyaaraddii ay caajis badan ku dareemaysay. waxay go'aansatay inay bedelato shaqada, kadib waxay baratay gabar Jabaaneys oo lagu magacaabo Yoko oo wax ka baranaysay jaamacaddeeda. isbarasho kadib waxay si degdeg u noqdeen saaxiibo aad iskugu dhow. Mandy ayaa si dhaqsi leh u baratay luqadda Jabaaneyska ee saaxiibadeed ku hadasho. Mandy ayaa sidoo kale xiriir la lahayd nin magaciisa lagu sheegay Rick Dyer. waxay ahayd arrin ay wada ogaayeen qoyskeeda iyo asxaabteeda ilaa waqtigii dugsiga sare. waxaa la gaaray waqtigii fasaxa ee jaamacadda, taasoo ardada oo dhan ay aadayeen qoysaskooda si ay waqti ula soo qaataan. Mandy ayaa maxsalaamaysay asxaabteeda jaamacadda, waxayna u safartay Acme si ay waqti ula soo qaadato reerkeeda. Yoko ayaa sidoo kale inta soo raacday, waxayna baratay qoyska Mandy oo ay waqti badan wada qaateen. balse maysan ogeyn qoyskan masiibada ku soo socoto maalmaha xiga. Mandy ayaa go'aansatay inay soo aalamiitayso. Yoko ayaa iyadana ka cudur daaratay inay raacdo oo waxay tiri guriga ayaan iska joogaa. ugu dambeyn Mandy dharkeeda ayay xiratay, muusiga ayayna dhagaha gashatay si ay u soo ororoodo. Mandy ayaa aaday aalamiitadii waxayna sii wadatay eegooda, balse 2 saac kadib markii ay soo laaban weysay waxay walwal badan ku abuurtay hooyadeed, taasoo isku dayday inay ka raadiso hareeraha guriga iyo meelaha ka ag dhawaa. balse waxay go'aansatay inay wacdo Rick oo ahaa saaxiibkeeda, iyada oo dareemaysay inay aadi karto saaxiibkeed Rick ka hor inta aysan guriga ku soo laaban. markii uu Rick telefoonka ka qabtay, hadalka uu ku dhahay ma ahayn mid ay filaysay, kaasoo ahaa ma arkin. isla markiina waxay dareentay inay wax xun dhaceen. markii ay ka baxday telefoonka Rick, waxay wacday booliiska oo ay u sheegtay waxa dhacay. sidoo kale dadkii u dhawaa ee qoyska ka tirsanaa iyo asxaabteeda ayay wargelisay si ay ula raadiyaan maqnaanshaha gabadheeda Mandy. saraakiisha booliiska ayaa wareystay dadkii qoyska ka tirsanaa iyo kuwii xaafadda deganaa, balse wax sheega waa la waayay. laakiin walaalkeed ka yar Lee ayaa sheegay inuu arkayay iyadoo wadada ku ordaysa isagoo u socda saaxiibkiis oo deganaa wadada 9aad. balse saraakiisha booliiska ayaa soo maray wadadii ay ku aalamiiteen jirtay oo dhan, balse aysan arag wax calaamad ah. 3 maalin ayaa ka soo wareegatay markii la waayay Mandy, balse reerka ayaa ku rajo weyn inay heli doonaan iyadoo nool. booliiska ayaa bilaabay inay baaraan webiga Nooksack iyagoo garab ka helaya dooni ay leedahay waaxda dabdamiska ee degmada. kooxdii doonta ayaa webiga dhinaciisa ka aragtay wax ka muuqda, taasoo ay u soo degdegeen. ugu dambeyn waxay heleen meydkii gabadhii yareed ee Mandy, taasoo aanan wadan wax dhar ah, kaliya kabihi ay aalamiitada ku samaynaysay oo qayb ka go'ay. meydka ayaa lala wadaagay qoyska iyo warbaahinta, taasoo hadalhayn badan ka abuurtay bulshada dhexdeeda. waayo meesha lagu dilay ayaa ahayd meesha ugu amniga badan agagaarka Washington ilaa Michigan. ugu dambeyn meydka waxaa loo diray shaybaarka si loo baaro. Mandy garbaheeda waxaa ku yaalay xariiqmo, taasoo dambi baarayaasha ay ku sheegeen inay u malaynayaan geedaha wadada hareeraheeda ku yaala, balse lama sii caddayn midaas. laakiin waxaa cajiib ah oo ay baarayaasha sheegeen halka meydka laga helay ay ahayd meel aan mool ahayn oo biyaha webiga aynan ku badnayn, taasoo muujinaysa inaysan ahayn qof webiga ku dhacday, balse ay tahay qof la dilay kadibna la dhigay halkaas. baarayaasha ayaa sidoo kale sheegay in dambiilaha ay ka cararaysay Mandy, taasoo ay ku ogaadeen in madaxeeda iyo qaybta dambe ee dhabarka uu ugu dhufto wax adag oo dhaawac halis gaarsiiyay. qofkii ugu horreeyay ay booliiska ka shakiyaan wuxuu ahaa Rick. isla markiiba su'aalo ayay weydiiyeen
si kastaba ahaatee dambibaarayaasha ma helin wax ku xiri kara geerida Mendy ee ku saabsan Drake. ugu dambeynna waa la fasaxay. dambibaarayaasha ayaa ururiyay DNA-da ilaa 30 nin oo deganaa magaalada Acme, laakiin wax natiijo kama soo bixin. balse sanado badan ayuu socday kiiskan, kaasoo dilaaga Mendy uu ahaa mid qarsoon. 2009kii kiiska waxaa loo xil saaray dambibaare cusub oo lagu magacaabo Kevin. isla markiiba shaqada ayuu bilaabay, wuxuuna eegay cadeymaha uu heli karay waqtigaas ee yaalay saldhigga. dambibaarahan cusub ayaa ka shakiyay nin lagu magacaabo John oo ka ganacsada droogada, kaasoo horey loo wareystay, xitaa laga qaaday DNA-da. wax macluumaad fiican laga haynin ayuu mar kale codsaday inuu wareysto oo booliiska ay keenaan saldhigga. balse booliiska ayaa soo waayay John, kaasoo u safray Cambodia, halkaasoo uu guuray waqti fog ka hor. kiiska ayaa sii noqonaya marka ka dambaysa mid fadhida, balse ay dhacday dhacdo lama filaan ah muddo 3 sano kadib ah. maalin maalmaha ka mid ah June 2013, laba dumar oo aan xiriir la lahayn kiiskan oo lagu kala magacaabayay Mary Lee Anderson iyo Heather Parkstrom oo ku noolaa magaalada Plickham, waa magaalo qiyaastii 35 daqiiqo u jirta Acme. iyagoo dalxiis u yimid halkan, waxa ay dadka magaalada uga sheekeeyeen kiiskan. balse Mary Lee ayaa wejigeeda isbedelay, taasoo sheegtay inay garanayso cidda geysatay dilkan. balse labada gabdhood ayaa ka shakiyay nin lagu magacaabo Timothy. labada gabdhood ayaa isweydaarsaday kulankii ay la yeesheen Timothy. Timothy wuxuu saaxiib la ahaa ninka Mary Lee, taasoo maqashay mar uu uga sheekeynayay gabar uu kufsaday uuna dil u geystay. sheekada markay maqashay ayay ku tiri ninkeeda, booliiska ayaan u sheegaa, taasoo ninkeeda uu u hanjabay kala tagooda haddii booliiska ay u sheegto saaxiibkeed. balse waqti dambe ayay kala tageen. ugu dambeyn Mary Lee ayaa u sheegtay booliiska inay tuhun ka qabto Timothy. dambibaarayaasha iyo saraakiisha kale ee booliiska ah ee loo xil saaray kiiska Mendy waxay bilaabeen inay furfuraan kiiskan intii karaankooda ah. bilowgii waxay ogaadeen booliiska inuusan wax dambi ka oolin saldhigyada booliiska Timothy. balse markuu dilka dhacay 1998, Timothy wuxuu deganaa meel aan ka fogeyn wadada ay aalamiitada ku sameynayso Mendy. 1990kii Timothy wuxuu guursaday naag lagu magacaabo Gina Milone, wuxuuna u guuray magaalada Everton. tani waa magaalo ku taal Washington oo qiyaastii 18 mayl waqooyi ka xigta Acme. Gina waxay u dhashay 3 caruur ah, waxayna ku noolaayeen nolol caadi ah oo degan. wuxuu ahaa darawal ka shaqeeya shirkadda rootiga. qoyskan ayay dambibaarayaashu ku soo booqdeen gurigooda, kuwaasoo wax ka weydiiyeen aqoonta ay u leeyihiin Mendy. balse Timothy ayaa sheegay inuusan wax weyn ka xasuusan, laakiin baaraha Kevin ayay u caddaatay inuu been sheegayo. wuxuu yidhi Kevin, qof kasta wuu garanayay kiiska Mendy Stavik sababtoo ah warbaahinta ayaa tabinaysay. ugu dambeyn baaraha ayaa weydiiyey inuu ogolaado si ay uga qaadaan DNA-da iyo shahwada, balse wuu diiday in laga qaado DNA-da, taasoo shaki fara badan ku beertay dambibaarayaasha. balse kumaysan sii adkaynin oo way ka tageen. laakiin waxay bilaabeen tan iyo maalinkaas inay si dhow ula socdaan isaga. sidoo kale waxay bilaabeen inay tagaan goobtii uu ka shaqaynayay, waxayna la kulmeen haweeney la yidhaahdo Kim Wagner oo ah maareeyaha warshadda rootiga. waxay u sheegeen inay baarayaan Timothy, ayna u baahan yihiin inay helaan DNA-da. balse way ka diiday oo waxay weydiisay warqad maxkamadeed, laakiin baarayaasha warqadda baaritaanka maysan haysan, waayo xiraalinta warqaddaas waxay bixisaa markii tuhmanuhu wax cad lagu hayo. balse 2017kii waqti badan markuu ka soo wareegtay, milkiilihii rootiga ayaa la kulantay dambibaarayaasha, taasoo u sheegtay inay ka caawinayso in DNA-da laga qaado Timothy. balse dambibaarayaasha ayaa la yaabay sababta ay u ogolaatay caawinaadda, oo waxay sheegtay inay tahay hooyo, haddii gabadheeda midaas ku dhacdana ay rabi lahayd caawinaad, sidaas darteed ayay u ogolaatay. Kim oo ahayd maareeyihii shirkadda roodhiga, maalin maalmaha ka mid ah waxay aragtay Timothy oo caag biyo ka cabay meel ku tuuraya. markii uu sii baxayay ayay soo qaaday, iyadoo dareemaysay in wadnaheedu aad banaanka u soo baxayo. kadib waxay u dirtay dambibaarayaashii, kuwaasoo iyagana shaybaarka u diray. ugu dambeyn natiijadii jawaabta shaybaarka ayaa soo baxday. dambibaare Kevin waxaa soo gaartay Katie oo ka socotay shaybaarka dambiyada gobolka, taasoo ku tiri way isleeyihiin DNA-da laga qaaday Mendy jirkeeda iyo kan hadda aan baarnay. dambibaare Kevin ayaa markii uu maqlay ereyadaas aad ugu farxay, wuxuuna yidhi waxaan ogaa sanado badan kiiska aan dhibkan ka marnay inuu yahay dilaaga saxda ah Timothy. December 12, 2017 dambibaarayaasha waxay tageen goobtii shaqada ee Timothy oo ay ku soo xireen kufsi iyo dil uu u geystay Mendy. dambibaarayaasha markay su'aalo weydiiyeen Timothy, wuxuu u sheegay inuusan ku lug lahayn dilka loo geystay Mendy. wuxuu kaloo u sheegay booliiska in isaga iyo Mendy ay lahaayeen xiriir qarsoodi ah, taasoo keentay in DNA-da laga helay ay ahayd inay wada seexdeen saacado ka hor inta aan la dilin, uuna shaqo ku lahayn dilkeeda. balse qoyska Mendy ayaa isla markiiba caddeeyey intaasi been tahay, uusan jirin xiriir kala dhexeeya Timothy gabadhooda Mendy. balse Timothy hooyadiis ayaa sheegtay inuu been sheegayo sababtoo ah in wiilkiisa uu ka codsaday inay u noqoto markhaati been ah, in waqtigaas labadooda meel ay ku maqnaayeen.
24 May 2019 Timothy oo 50 jir ah waxaa lagu helay dambiga kufsi iyo dil darajada koowaad ah uu u geystay Mendy waxaana lagu xukumay 27 sano xabsi ah. xukunka iyo cadaaladda maxkamadda ay u samaysay qoyskan waa sidii ay sheegeen waxay ku dareemayaan dareen raaxo leh, balse waxaa muruga ah gabar yar oo qurux badan oo hami ka leh nolosha sida Mendy oo kale in si lama filaan loo soo afjaray nolosheeda. si kastaba ha ahaatee waxaa jira nafis ah in la ogaado gacan ku dhiiglihii oo la hor keenay cadaaladda. laakiin daawade ma kula tahay inay jirto in Mendy iyo Timothy ay xiriir qarsoodi ah yeesheen mise waxay ahayd wax uu iska yiri si uu isku badbaadiyo? nagula wadaag fikirkaaga, waad ku mahadsantahay daawashadaada.